السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو عنا وناكسان صاحبة قيمة هي قدرين تنجمدن ملك سوء الجوكتان يولي بسكة سوء نول السعوتان هالكان يوا سلطان كتيفي وحد قبرتن سلطان كتيفي وررس حن حقيق دنا كوس ليسان يحويه يقول بيئة كجرا سومالي عالم كا قضبض حيساها بدنا وركان كوي جدونا وحكم من نقنية تعلم مهمة أو لورد سيا مسؤولين تي كالين تكقاطي سودعين تي سوعين تكيس كبيها الصومالية haddaba madaxweyne farmaajo halkee ayuu uga jiraa yaa isa kamid ah xubnaha kale ee taalada loo dhisayo waxaan warkeena ku eegi doonaa dawladda Soomaaliya oo wada qorshe taalo loogu dhisayo ragga difaacay biyaha Soomaaliya 12 Oktoobar oo ah maalin markaasi mugdi gelinaysa damci siyaasiyiintii saxiixay biyaha Soomaaliya iyo sidoo kale 12 Oktoobar oo loo asteeyay maalinta ummadda Soomaaliyeed ee difaaca biriga iyo badda Soomaaliya waxaan warkeena ku soo gudbi doonaa dabaaldegyo iyo sidoo kale munaasabado waaweyn oo dalka iyo dibadiisa ka dhacaya iyo ummadda Soomaaliyeed oo si wada jira u faraxsan haddaba madaxweyne farmaajo kaalintee ayuu uga jiraa yaa isa kamid siyaasiyiinta kale ee taalada loo dhisayo warkayaan ku soo gudbi doonaa madaxweynaha dalka Kenya wuxuu dalalka saaxiibkiisa u sheegay in Kenya laga guuleystay meel xun ay taagan tahay waxaan idin soo gudbi doonaa warbaahinta Kenya oo qoraya warbixino la yaab leh oo ay ka daabaceen madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta yaa kamida dalalka oo la wadaagay in Kenya laga guuleystay iyo sidoo kale murugada uu ku sugan yahay Uhuru Kenyatta warkayaan ku soo gudbi doonaa qodobadeena kalena waxa kamid noqonaya maxaa ka jira in siyaasiyiinta mucaaradku ay dhaqaalihii ugu badnaa ka cunto dawladda Kenya kadib markii lacag laga soo diray dalka dibadiisa ay afku u dhigteen saraakiil Kenyana waxaan idin soo gudbi doonaa xubnihii maxkamadda la taago wararkeena hore aan ku baahinay oo wararku ay sheegayaan in la soo daayay iyo mucaaradka oo markaasi waayay dhaqaale ay ku tabayeen dawladda Kenya waxaan warkeena ku soo gudbi doonaa dawladda Kenya oo beegsanaysa siyaasiyiinta Soomaalida iyo sidoo kale dhaqaale mucaaradka uga xayirnaan Nairobi oo wararku ay sheegayaan in afka loo dhigtay sabab la xiriira dagaalka kiiska badda Soomaaliya warkayaan ku soo gudbi doonaa أحمد قرقرنا وحو وعد كمري إن محكمة وصول صاري دونم شيخ شاكر علي حسن يحلو فدي سكولو ماليسان يقول عيل إيه ديجانا ده هوسي ماذا وهن وركن كوسو قد بدونا قرقر أول جسوا حكتي إنه وسان مرنا بأقبلين إنه وده هذا الكلام علوم ده أهل السنة والجماعة وركن كوسو قد بدونا يسدو كله وهن إيه قدونا ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo gacanta ku soo dhigay saraakiil sarsare ka tirsan al-shabaab saaxiibada qiimaha iyo qadarinta inaga mudan halkani waa suldaanka TV subscribe saara suldaanka si share garay oo muuqaaladan saaxiibada gaarsiisay kula daawadaan like tahnagay loobin commentiga noogu soo qor qaybta hoose adigoo markaasi fikirkada saliimka ah iyo aragtidaada suuban ku cabiraya waana ku mahadsantiin sida noo la socotaan u diyaar garooba qodobadii aan dul maray oo intaasi ka faahfaahsan aan ku bilowno warkeena waxaynu ku bilaabaynaa warkeena qabanqaabada ka socota madaxtooyada Soomaaliya iyo sidoo kale xogo muhiim ah oo sheegaya in taalo muhiim ah loo dhisayo mas'uuliyiinta kaalinta weyn ka qaatay soo dhicinta biyaha Soomaaliya oo Kenya sheegatay madaxweyne farmaajo ayaa ku jira xubnaha markaasi la saadaalinayo in taalada loo dhiso si markaasi loogu muujiyo dareenka ummadda Soomaaliyeed iyo sida markaasi ay u difaaceen biyaha Soomaaliya muddo dheer oo ay la kulmayeen cadaadis xoog badan sidaynu xogta ku helayno waxa markaasi dawladda Soomaaliya ay qorsheynaysaa ilaa 4 taalo in la dhiso wallow markaasi 4taasi taalo cidda loo dhisayo aynu xogta ku helnay inuu kamid yahay madaxweyne farmaajo balse aynu helin saddexda kale xubnood oo markaasi kamid noqonaya xubnaha la doonayo in si wada jira markaasi taalo loogu dhiso maadaama ay kaalin weyn ka qaateen ee markaasi soo celinta biyaha Soomaaliya sida la aaminsan yahay waxa markaasi taaladaasi ka soo muuqan doona siyaasiyiin mugyo miisaan magac iyo maamuus kula siyaasadda Soomaaliya iyo difaaca biyaha Soomaaliya taasoo ka dhigan mid si wada jira markaasi looga difaaci doono dawladda Soomaaliya ayaa muujin doonta midnimada iyo sidoo kale wadajirka ummadda Soomaaliyeed iyo sidoo kale in markaasi aan koox gaar ah lagu shabadeyn guusha Soomaaliya balse ummaddu ay si wada jira markaasi ugu dabaaldegto sidoo kale waxa la saadaalinayaa in aynan markaasi fursad siyaasadeed dawladda aysan ka raadin guusha alana siiyay biyaha Soomaaliya madaxweynaha dalka ayaa sidoo kale lagu wadaa inuu jeediyo khudbad qaran una dhigata guusha la gaaray iyo sidoo kale inuu u mahad celiyo baarlamaankii 2009 ee diiday is-afgaradkii badda Soomaaliya iyo saxiixii siyaasiyiinta ay u saxiixeen biyaha Soomaaliya dawladda Kenya sidoo kale madaxweyne farmaajo ayaa lagu wadaa inuu u mahad celiyo madaxweynaha hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maxkamadda cadaaladda adduunka horgeeyay dacwadda badda Soomaaliya taasoo ka dhigan mid madaxweynaha lagu wado inuu si toos uga hadlo
dowladda Soomaaliya ayaa qorsheynaysa in haddii la soo gabagabeeyo dhageysiga kiiska badda ee dowladda markaasi ay si degdeg ah uga howl gasho taalada loo dhisayo siyaasiyiinta iyo sidoo kale mas'uuliyiinta mugga iyo miisaanka magaca iyo maamuus kale ee ka qayb qaatay difaacidda biyaha Soomaaliya iyo guusha Soomaaliya sida la aaminsan yahay waxa taaladan ka soo muuqan doona qareena kamida kuwii tagay heeg iyo sidoo kale mas'uuliyiin si wadajir uga qayb qaatay difaaca biyaha Soomaaliya madaxweyne Farmaajo ayaa ka soo muuqan doona maadaama uu ku dhabar adeegay kana dhabeeyay guushii uu ballan qaaday ummadda Soomaaliyeed ee ahayd inaan marnaba gorgortan laga gelin biyaha iyo biriga Soomaaliya madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa fariimays daba jooga u soo diray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne Farmaajo ayaa iska diiday inuu la fariisto madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta kadib markii la isku arkay gudaha dalka Itoobiya xoguhu waxay sheegayaan in arrimahaas Uhuru uu markaasi doonayay inuu wada hadal la galo madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo balse arrintaas waxa gaashaanka ku dhifto ka soo horjeestay madaxweyne Farmaajo wararku sida ay sheegayaan dowladda Kenya way ka quusatay biyaha Soomaaliya madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo markaasi ka hadlaya munaasabad ka dhacday gudaha magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa soo hadal qaado ka dhawaajiyay in Soomaaliya ay ka guuleysatay Kenya kadib muddo sanado oo isku haysteen badda ee markaasi xuduudda ah ee badweynta Hindiya kamid ah Uhuru Kenyatta ayaa shacabkii uu la hadlayay u sheegay in Kenya ay markaasi qarka u saaran tahay inay markaasi ka quusato biyaha Soomaaliya la isku haysto wuxuuna shacabku ugu baaqay in arrimahaas ay ka dambeysay maxkamadda cadaaladda adduunka shacabka iyo ka codsaday inay isdejiyaan 12 Oktoobar oo markaasi maalmo quray naga xigaan Uhuru Kenyatta ayaa cadeeyay inuu markaasi in laga guuleysto Kenya wuxuuna markaasi shaaciyay in go'aanka maxkamaddu uu hal meel ahaa lahaa oo aysan jiri lahayn biyaha Soomaaliya oo la kala gooyo balse wuxuu shacabku ugu bishaareeyay in haddii Kenya loo xukumi lahaa ay shacabku faraxsanaa lahaayeen isaguna uu faraxsanaa lahaa balse kiiskii badda ee muddada dheer soo jiitamay ay qaadato Soomaaliya arrintan ayaa u muuqata mid Uhuru Kenyatta ku guul dareystay waxaana sidoo kale farxad iyo raarayn ay u tahay hogaamiyaasha dalkeena Soomaaliya oo markaas u dhabar adeegay muddo dheer oo maxkamadda ay qaadanayso go'aano kala duwan kadib dhaqaalo iyo codsiyo xoog badan oo dowladda Kenya ay bixinaysay Uhuru Kenyatta ayaa si toos u cadeeyay in Kenya ay fashilantay biyaha Soomaaliya dhinaca kale waxaynu eegaynaa saraakiil Kenyaan ah ayaa looga yeeray maxkamadda dalka Kenya kadib markii siyaasiyiin mucaaradka kamid ay dacwad ka gudbiyeen saraakiishaas Kenyaanka ee lunsaday dhaqaale xoog badan oo mucaaradka loogu talagalay taasoo markaasi dalalka qaar laga soo dhiibay sida aynu xogta ku helnay lacagtan oo la soo gelin raba gudaha Soomaaliya ayaa waxa la wareegay saraakiil Kenyaan oo ku sugan magaalada Nairobi kuwaas oo afgembi ku sameeyay siyaasiyiinta mucaaradka qaar kamid ah oo markaasi doonayay in dhaqaalahaas ay soo qaataan xubnaha dacwadda gudbiyay ayaa sida xoguhu sheegayaan waxa kamid ah Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo siyaasiyiin kale wallow siyaasiyiinta kale magacooda aynu xusi karin oo aysan soo gaarin haddana sidaynu xogta ku helnay Cabdikariin Guuleed ayaa hogaaminaya siyaasiyiinta lacagta laga lunsaday ee u dacwo taga maxkamadda dalka Kenya Cabdikariin Guuleed ayaa kamid ahaa murashaxiinta u taagan hoggaanka Soomaaliya waxaana wararku ay sheegayaan inuu dacwad ka furay maxkamad ku taala Nairobi taasoo ka dacweeyay saraakiisha markaasi uu shaaciyay in lunsadeen dhaqaalahaasi ma la cadeyn dhaqaalahan dalalka laga soo dhiibay iyo sidoo kale qorshaha laga lahaa balse xogaha ayaa sheegaya in lacagtan laga keenay Imaaraadka Carabta looguna talagalay in ololaha doorashada loogu sameeyo siyaasiyiin kamid ah mucaaradka waxaana siyaasiyiintan lacagtan laga lunsaday ay gaarayaan ilaa 3 siyaasi oo markaasi kamid ah murashaxiinta u taagan hoggaanka Soomaaliya siyaasiyiinta mucaaradka ayaa dhaqaale xoog badan ka helay dalalka qaar oo taageerada siinaya bari ka maalin mid kamid ah hadii uu guuleystana u arkaan inay la shaqeey karaan oo danaha Soomaaliya ay kala yihiin u furi karaan dhinaca kale dowladda Imaaraadka Carabta ayaa fadeexad xoogan kala kulantay faragelinta ay ku hayso dowladda Soomaaliya dalalka qaliijka ayaa qaatay go'aan mid ah oo ku aadan Imaaraadka Carabta iyo faragelinta uu ku hayo dowladda Soomaaliya dowladda Imaaraadka ayaa tan iyo muddo dheer waxay faragelin xoog badan ku haysay arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo sidoo kale arrimaha gudaha Soomaaliya taasoo ka dhigan mid mar walba ay soo adeegsanaysay siyaasiyiin daran gaar ah iyo sidoo kale shakhsiyaad doonaya inay ka macaashaan magaca Soomaaliya qaar kamid ah dalalka qaliijka ayaa u yeeray dhaxal sugaha Imaaraadka Carabta waxaana sidoo kale kamid ah dowladda Qatar Sacuudiga Bahrain iyo sidoo kale dalal kale dhowr ah kuwaas oo isku raacay in Soomaaliya sanadkan doorashada ay dhacaysa laga dayo faragelinta Imaaraadkana loogu hanjabay in tallaabo ay qaadi doonaan qaliijku haddii Imaaraadku ka waantoobi waayo faragelinta ku hayo Soomaaliya dhinaca galmudug ayaan aadaynaa
hogaamiyaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa iska diiday inuu la xaajoodo sheekh shaakir cali xasan oo isagu ku sugan guraceel halkaasna ku hanjabaya inuu dagaal ku qaadi doono qoorqoor iyo sidoo kale ciidanka qaranka ku sugan deegaanada galmudug maamulka galmudug ayaa ku gacan seeray inuu wax wada hadal la galo kooxda ahlu sunna wal jameeca oo dhowaan dib u qabsatay deegaano ka tirsan galmudug dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaa laga soo tabinayaa deegaanka waxayna siyaasiyiinta ka soo jeeda galmudug aragtiyo kala duwan ka bixiyeen sida loo wajahayo kooxdan markaasi soo rogaal celisay ahlu sunna wal jameeca inta badan siyaasiyiinta ka soo jeeda 11 beel ee ku midoobay galmudug ayaa si buuxda garab istaag ugu muujiyay maamulka galmudug iyagoo ahlu sunna ku tilmaamay koox jabhada oo qabsatay dhul nabada oo markaasi maamul uu ka jiro waxayna ku baaqeen in maamulka galmudug lagu garab siiyo inuu xaqiijiyo amniga deegaanka iyo sidoo kale inuu gacantiisa ku soo celiyo deegaankii laga qabsaday dhowaan dhinaca kale waxaa jira dhowr siyaasi oo ka soo jeeda galmudug oo ku baaqay in xiisada taagan ee lagu xalliyo wada hadal balse galmudug ayaa u aragtay siyaasiyiintaas inay yihiin kuwa ka shaqaynaya iska horkeenka al-sunna iyo galmudug ugu dambeyntii xubno ka tirsan ururka al-shabaab ayaa waxay weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda Soomaaliya ku leeyihiin deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose waxaana halkaasi ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan saraakiisha ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxay sheegeen inay ka hortageen weerarka al-shabaab ay ku soo qaadeen saldhigga ciidamada ay ku lahaayeen Shabeellada Hoose saaxiibada qiimaha iyo qadarinta naga mudanow warkiina halkaan ayaan ku soo koobayaa